Audio Jungle. Audio Jungle. kusoo dhawow Naciim. هذا سي مالكم فرديان نعيم waxay ka dalbadeen maadaama iyadu tiri ayna maxaa la dhahday ay halkan calankeedii ay la soo istaagtay inay heestii Soomaaliya toos in yar ugu luuqayso Soomaaliya tooso toosay isku tirsaday bakina tagdaranay taageero waligiine Soomaaliya tooso isku tirsaday hadbakiina tagdaranay taageero waligiine idinka isku tooqayo idinka isku taamaye Soomaaliya tooso isku tirsaday hadbakiina tagdaranay taageero waligiine igar halaha daanu heesa kuma luuqayna qaano on salaamaya madaxda marti sharafka iyo ardayda jaamacadda Jigjiga dhamaantiinba dabcan jaamacadda Jigjiga inaan maanta horteeda ka hadlayo farxad weyn ee aniga ay tahay jaamacaduhu waa beeraha ay ka soo baxdo aqoontu sida oo kalena waa halka ay tahay inaynu ku daadino ininyaha falsafadeed nololeed iyo qiyam ee aynu rabno inaynu berri toole gorano qaacido ayaa jirta tiraahda waqtiga runta ayaa u walaala inaan hortiina soo istaago oo aan bila yar ka hor suurtagal ahayn waxa ay qayb ka tahay isbedelka geeska ee uu horseedka ka yahay Abiy Ahmed isla gobolkeena Mustafa Umar hogaaminayo haddii shimbir in badan qafas lagu hayay oo la sii daayo ma jeclaysato inay dhaqaaqdo ama duusho si taasi la mid ah bulsho in badan lagala dagaalamay aragtidooda si xor ah inay u cabiraan marka xorriyada loo sii daayo waxa laga yaabaa inay jahawareeraan oo ay garan waayaan aragtidooda si dimuqraadiyadeed intay u cabiraan jihada ay tahay inay qaadaan inay u dhaqaaqaan waxaa jirta xirfad la isticmaalo marka baaleyda laga hadlayo xirfadaasi waxay tidhaahdaa haddaad digaagad soo iibsato marka ugu horeeya cagahaad soo qabanaysaa bilow waxay isku dayi doontaa in ay kaa baxsato laakiin markay awoodi weydo in ay kaa baxsato waxay aaminaysaa inay awood beeshay marka aad dhulka dhigto ilaa yodlaad ku dhufato ama aad wax ku dhufto ma dhaqaaqdo si taasi la mid ah anigu maanta waa inaan dareenkiina kiciya oo aan idin tusaa inaad idinku wax qabsan kartaa dadkaygiyo waxa aad ka tirsan tihiin bulsho lagu qiyaaso 9 milyan laakiin isra ahaan waxaad ka soo jeedaan bulsho lagu qiyaaso 25 milyan ilaa 30 milyan inta u dhaxaysa dabcan Soomaalinimadu waa aqoonsigeena waa wax la inagu garto haddaynan iyada quweynin inagu dunida waxba kama noqonayno mana sii jiri doono waxa laga yaabaa dhalinyarada hadda nooli ee kuwa bariistay oo xuduudaha ay reer galbeed ku dhigeen in ay ku jahawareeraan siyaasadda maanta jirta iyo wixii iyaga ka horeeyay jiray tusaale ahaan waxaan idin siinayaa tusaalihii igu qiirada badnaa aan arko ilmo yar oo sanadadan lagu jiro 18 jir iyo 20 jir inta u dhaxeeya oo laakiin yaqaan isirkiisu qiimaha uu leeyahay maalin maalmaha kamida orodadii Djibouti
ee sanadkii hadda la soo dhaafay waxaa ka wada qayb galay wiil magaalada Jabuuti ka socda iyo wiil magaalada Muqdisho ka socda wiilkii reer Jabuuti oo tartamo orodka ugu horeeyay intuu ordayay waxa uu eegay xaqiisa dambe BBC da waraysato waxa lagu yiri warniyo intii aad ordaysay xagga dambe adeegaysay xagga dambe maxaa ka jiray wuxuu yiri wax Soomaali sheegto walaalkay wiil reer Muqdisho aad jiray waxaan eegay walaalkaygii Soomaaliga ahaa halku soo maray inaan ogaado laakiin waan ka xumahay awoodan soo qaadanay waxaan rabaa in aynu ogaano oo aynu xoojino waxa isku keen xiraya inuu yahay isirkeena oo aanay dadka kale intooda badan ama haddaynu tusaale u soo qaadan Itoobiyada maanta ku noolahay dad qowmiyada iyo isir kaliya wadaaga aanay ahayn xaqiiqada jirtaas waxay tahay maanta waxaan u baahanahay inaynu ku wada hadalno buugan dastuurka Itoobiya waxa ku yaala aynu xaq u leenahay inaynu inagu qaadano in kaga shaqeysano inagu cidnaba ku xadgudbahay maalmihii ugu dambeeyay waxaan ka fikiraynaa dastuurka wadanka ogaado jaamacadda ayaan mid dhalinyarada jaamacadda ayaan la hadlay aan ku waxaan u baahanahay buugga meelaan ka iibsado ama meelaan ka akhrisan karo si aan wax uga ogaado dastuurku qodobo wuxuu dhigayaa dabcan aanu markii aan hore aanan islahayn wuu idin siiyay xaqa laakiin aan aaminsanahay dadka aynu ku hoos noolay inaanay waxba inaga xaqirin inagu inaynu nahay kuwa isugu wacan la xaqiro tusaale ahaan magaalada Jigjiga ayaamihii ugu dambeeyay aan ku sugnaa meel kasta waxa ku yar afka Soomaaliga waxaad arkaysaa gidaar kasta Ingiriis iyo Xabashi baa ku yaala buugga dastuurku laakiin si taa ka duwan ayuu sameeyay wuxuu ku yiri bulsho kasta xaq waxay waa qodobka 39 farqadiisa labaad ayaa dhigaysa wuxuu yiri bulsho kasta xaq waxay u leedahay inay afkeeda qorto kobciso dhaqankeeda iyo taariikhdeedana ay ilaaliso ku faanto inaga maxay nagu dhacay markaa ma inaga wali dad iyagu cid isu gumeeya mise inaga Itoobiyaan ismoodeen aqoonin halkeen ka soo jeedo waxaan doonayaa su'aashaas qof iga jawaabi karo madasha joogay inuu jiro maxaa dhacay hoteelada goobaha ganacsiga meel kasta Itoobiyaan ay haysta ma diidanin deegaanka nugula nooli way noo shaqeyn karaan laakiin sideeday percentage ugu badan u qaadan karaan وسؤال بدن إنه قفك يسويديه وحكلا أو شرطة لما أنت وحين أمرار دي لحسن إن أدودينا إن دول يدد لينك حيستو وحان إسويدي بوغن قضب كسجالية صدنات فرقدي سكوبات أيا دقيسة بلشة كاستو أو وح إسكم مذو وداكتا إنا يقوي كرتو ما حد قاضي أفكار دي بابا تهجاتني ويدي dadkaygii waxaan rabaa inaan idin sheego ummaduhu marxaladaha ay soo maraan ayay wax ka bartaan marka aan anigu arkayo 100 milyan oo Itoobiyaan ama 90 milyan oo Itoobiyaan oo dhul iyo dadba igaga maqan yihiin oo dariskayga yihiin isla sidaasi kamidana ay Kenyaan oo dhul iyo dadba igaga maqan yihiin dariskayga ay yihiin waxaan u baahanahay ficil ummadaha xurta ah ay la yimaadaan ku ka badan oo aan ugu dagaal tagayo waxayga iga maqan sidaan ku soo dhacsan lahaa waxaan arkay madaxweynaha gobolka oo aad ugu adkaynaya dagaalkii 77 dadkii u soo halgamay waa mujaahidiinteeni waa run haba lagu daran oo la sida Itoobiya maalinta Talyaaniga ka adkaatay u xusaan maalinta dawladda federaalka Soomaaliya inay ku darsatay ahayd oo iyaguna maalinta xusoo xaqiiqadu waxay tahay siyaasad ahaan gobolkeenani waxa uu ka tirsan yahay Itoobiya haddaba inta aynan u gudbin waxyaabo kale 10 sano soo socda waxaynu u baahanahay inaynu inagu isdhisno waa inaynu aqoon ahaan dhisanahay siyaasad ahaan dhisanahay dhaqaale ahaan dhisanahay waa in aynu u diyaarsanahay bulsho doonaysa in ay hadhow toole wixii ay doonayaan inay noqon karo la ixtiraamo takaliyatay inta ku sameyn karnaa waxay tahay aniga naciima ahaan in midnimo gudaha la helo iyadoon Soomaali kala imanin gobolkan dadka ku nooli waa inay midnimo gudaha ay helaan waa in ay isku duuban yihiin oo ay dhinac wada jeestaan marxaladaha kala guurka lagu jiray midna la galay midna laga soo baxay ee ay adkeyd waliba xilliyada qaar kood in la helo waa lagu jahwareeri karaa
waxaan u baahanahay in la isku duubnaado laga digtoonaado cudurka Soomaalida naafeeyay oo ah qabyaalad oo xataa ummadaha kale Soomaalida hayna ay ina yaqaanaan waxa aynu halka ku gaadhnay ee aynu dawlad la'aan iyo darxumiyo qaxoonti ugu jirnaa in ay tahay qabyaalad iyo nin kasta oo u doodaya inuu reerkiisu wax noqdo laakiin xaqiiqadu waxay tahay reerkaagu qarankaaga la'aantii horta wax ma noqon karo yaa arkay reer wax noqday kaliya yaa arkay reer darajo gaadhay cid inaga mudo oo reerkoodi intay qabyaalad darteedu waxay taan wax noqdeen ma jiraan waxaan u baahanahay cudurka qabyaaladda inaynu ka digtoonaa ugu dambeyntii ma doonayo inaan ku dheeraado waxaan rabaa in aan idin soo qaato tusaale markaan bariga Afrika marayay oo aniga saameyn igu lahaa aanan isleeyahay dhacdooyinkii gobolka soo maray wax baa laga baran karaa tusaale ahaan تعدية بدن أيها كدعي ما دونينين إنه كهذا waxaynu rabnaa tacadiyada dadkii inaga inama midka ahaa ee soo maray sidii ay uga fal celiyeen in ay tusaale inoo noqoto sanadkan bartamihiisa baan Rwanda tagay Rwanda waxay ka mid tahay 94kii wadamada sida baan isku baabiyay mid ka mid ah dadkooda la xasuuqay ayaan la kulmay waxaan weydiiyay bal ii waran sidee bay u dhici kartaa qof dadkaagii laayay inaad la noolaato waxay iigu jawaabtay gabadhaasi 8 ciyaala oo aan walaalanahay hooyaday aabahay abtiyaasha iyo habareerahay ninkii dilay baan anigu qoodiyaa oo gacanta ku hayaa waxaan rabaa inaan ogaado xigmad dabartan ka dambaysa waayo waxaan ka imid dad ay isku xaalad marteen welina ku jira waxay iigu tiri runta hadaan ku sheego ninka hadaan dilo dadkaygu ima soo noqonayaan haddii aan culaadiyana culaadi waxba iima tarayso ugu dambeyntii waa nin reer Rwanda oo waxaan ogahay berri ka maalin hadaan u dagaal sokeeyo galno waa nin tolkayo aniga dalkayga iyo dadkayga difaaci kara waxaynu u baahanahay qof kasta oo Soomaaliya oo dambi ka galay shacabkeena gudihiisa in aynu u cafino waayo waa ninka aad berri toole ku dagaal tagayso qof inaga dhinto uma baahnin laakiin waxaan u baahanahay keen inaga xumaaday inaynu dhaqan gelino iyo mid inoo dhasho aynu barbaarino dhulka iyo dadkana inaga leh taaloolay Audio Jungle. Audio Jungle.